Hi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxaan soo galay as well yesterday programkii aan maxaa la dhahaa ani iyo walaashay aan nacmo ducaale aan samayn weynay fa wacyigelinta iyo maxaa la dhahaa about narcissistic personality as we all suffer from that. Marka aniga waxaan sii hordhac u sheegay slanderka إسلام كحو كليه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى عليك السلام ورحمة الله وبركاته برك إلهي وحير فيريا فاسق هدو خبر إذن لي مادو قف بينك كأوجيدين أو معصية كأوجيدين أو إذا بدرك كأوجيدين أو حن كأوجيدين مركو هذا إذن لي مادو فتبينوا بالغ دحي إسكاهو بصدى ليلة تسيبوا محالدها قوم بجهالة ديكو وحبا أوجين فتكونوا نادمين هدو أكشليني سنت إذا too late مركا كشليني سوماها الحمد لله تمام شمسة سودو مركا دتكينا محالة دها أو وحول بيسكروا ما يسنا برايفت كانوا جوسو قال لي وحلو لي هي oh my god that's run me that كان واسك global ويان that's why but that كاس محالة دها أوجشن trap كودا shabaqooda loo wada galay naxariis darteed iyo wax walbo loo galay marka taasaan maanta ka hadlaynaa walaashii already way soo diyaarisay waa diyaar baanan nahay so I'm just connecting her with my WhatsApp. Okay, so I'm calling walaashii maxaa speaker kana gelinaya وانكسو وعيا إيجا قبو. Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مقليا ولا شيء؟ مالي مقلا. كسو قرا. أنا سكلي. سو قراها. سفي عمي مقشام. سحابة شمسة. أو ها والو مقلايا الوير شمس كلي. أوكي. Marka, go ahead program ki حبيبتي أدنوسو ديارسي. Go ahead, take your time. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد سلامي. لما أنتين شمسية أسحابتي ذا وأنيقو نعيم دعالة. ولا ليالو إن شاء الله ما أنتو حاربا إنان معركتي عن إذين شرحو هبدا قماد أي دادك قار ودقسي أي ودقمان يعني mental disorder اللي يراهدو Soomaali hadaan waxaan naqaanaa wax la yiraahdo waali iyo fiyowaan ilaakiin waxa jiro mental disorder badan oo u dhaxeeya jira waxaan naqaanaa qofka waa waali in la dhaho oo dharka iska dhigo waaw dhaho iyo qof waa caafimaad qaba laakiin waxa jiro mental disorder oo qofkan functioning ah oo laakiin intaas oo dhan u dhaxayso marka insha Allah walaalayaal waxaan rabaa maanta inaan mental disorder kan la yiraahdo narcissism inaan idinkaga sheekeeyo marka aniga wax badan akhriyay oo aan fiiriyay waxaan moodaa dadkan in ay yihiin shayaadiin insi waa dad yani aan ku qiyaasi karaa yani dad waxa u maleysaa hab dhaqankooda in ay yihiin dad shayaadiin laakiin insi ah dadkan horta calaamadahooda raba inaan idin sheego muhiim idin tahay inaad barataan because waa akhrin kartaa qofka immediately markaa baratid calaamadahan hadaa waa ka leexan kartaa laakiin if you don't hadaadan laakiin calaamadahan aqoonin dadka noloshaada dhan way baabi'in karaan dadka ay ku dhex jiraan marka way ku dhex waashaan waxaan ku leeyahay dad xataa suicide isku sameeya family memberada dadkan ay ku dhex jiraan yani dad drug users noqda dadka nolosha dadka way ka ridaan completely na destruction ay ku sameeyaan marka insha Allah walaalayaalow hab dhaqameedka lagu garto horta calaamado waxay leeyihiin different kinds waxay leeyihiin covered narcissism waxay leeyihiin kuwa ma arkin outspoken ah oo loud ah waxay leeyihiin kuwa qarsoon oo aadan arki karin ay leeyihiin marka qaybo kala duwan way laakiin maanta waxaan rabaa just guud ahaan inaan idinkaga sheekeeyo insha Allah dadkan calaamadaha koow aad ku garan kartid waxa waaye waxay leeyihiin they have muxuu ahaa
exaggerated sense of self-importance يعني واو أنا قف قطرة هاي الله أنا يعني ودد مر والبوستفul فانك يعني ما أهني يعني كلسوني ذكر حسوا قلدان قف كان إنه كلسوني ليه كلسوني ذات كان هرت زيرو ويكيهين كلسوني ما قبان لكن they're very boastful ودد 24 hours إسفانين هايو exaggeration وحي أهين أنا نقف قطرة أنا ونين قطرة أنا ودد نوع عسوان dadkan waxay qabaan they have a sense of entitlement and require excessive admiration يعني waa ina maanta qofka aad tiraahdo shamso wow adiga waxaad tahay boqorad aad ma aragtay wow adiga waxaad tahay qofkii maanta dhan waa in aad dadka ay dadkan marka xiriirka la sameystaan xiriirkooda markasta waxa waaye slave qof yani adoon iyo qofkii adoonsanayay xiriirkooda dhan waa saas waa controlling oo kale Soomaha waa slave waa qof slave ah dadka wax marka waxa waaye iyaga waxa waa slave owners yani iyaga dadka mar walba la joogaan waa dad ay haystaan la haystayaal ma aha dad ula jooga jacayl iyo ma waa la haystayaal ma garatay waa dad ma arkino mar walba ay rabaan hoos u riixaan يعني مركز هوسي وريحة يا قفكان هذا قفكان فرين على تهاي فرين شبكيسة ما أهن أنا أبي صاحبة أنا هاي two way street ما أهن واحد كستوى هالجت أنا جا إسي أنا جا إصابة أنا جا إيمو أنا جا مركان على إيمو أنا جا محوها هديد كان يجا وح مكسوبحان وحلي قلو because this is how they feel أنا جا قف مهمة هاي أبي أنا وحات هاي سقالة هي عملاتها يعني ساسي حتى ضدك qof kasto noloshooda soo gala waxay u isticmaalaan as a tool hada qalinkan halkan yaalo qalinkan goortan soo qaaday ama wax ku qoray isaga ima sheegi karo marka raba soo qaadana marka raba wax ku qoraya qof kasto noloshooda ku jiro waxay u isticmaalaan stepping stone yani way use gareeyaan intay markay u baahan yihiin waqtigaas markay use-kii ama waqtigii ay isticmaalaanna waxay u tuuraa sida qashin qofka camal waxa waaye qofkan waabu kula joogay ma saaxiibka ama waa ma yaqaanaan it's like hey they're just mar meeshay joogaanna waxay kula joogaan waxbay danay ka leeyihiin qofna lama joogaan for no reason qof kasta waxa waaye danay ka leeyihiin dadkan qof kasta ma aadaan waxay target gareystaan dadka oo soft hearted ka ah waa dadka waxay raadiyaan masaakiinta ah qalbiga fiican dadkaasay target gareystaan iyo vulnerable kayfiriyaan qofka aad u naxariista badan qofkaasi haday hooyada noocan waxaan haday tahay aabaha haduu qabo noocan ama hooyada ay qabto ama walaalka uu qabo wuxuu target gareynayaa ilmaha ka ugu baarisan ilmigaas wuxuu ka dhigayaa baabacsanaya dabagalaya marka dabeecadahan ay dadkan leeyihiin dadkan waxay sameeyaan exaggerated achievement يعني talent يعني waxay sameeyaan wax aynan yani qabsanin oo talent in lahayn ayay ma aragtay dhahan waaw aniga qof talent ahay yani qofkan dadkan noloshooda hadaad daba gashidna runtii waa zero wax ay yani waa dad aan achievement lahayn waa dad aan dadnimo lahayn shakhsiyad lahayn dadka waxay mar walba ku busy ku yihiin preoccupied ku yihiin fantasies yani riyooyin ma garat wax fantasy wax marka lagu dhahayo yani meel in la aragtay power iyo success iyo brilliance iyo barkino qurux iyo waxaas ay maanta oo dhan preoccupied ku yihiin ay ku mashquulsan yihiin dadkan waa dad power jecel waa dad in la faansa jecel hadaad faanisid kuma filna waa ceel aadan buuxin karin maanta waa in ay dhahdaa nicimo ducaa la gabar fiican tahay nicimo ducaa la gabar fiican tahay gabar sharaf la tahay adiga ku heli karo constantly u baahanahay mar ima dhehayso laba ima dadka dhan waa inay saasi dhahaan anna waa ina maanta ku soo celceliya aan dhahaa wow aniga gabar fiican la aqli badan waa constant ma aha isku qaldin confidence iyo waxa isku qaldin wax qofkaan inta waa qof zero confidence leh zero confidence dan ma qabiyo xaasidnimadan iiga waran yani dadkaan waa very jealous dadkaan xasad
subhanallah ilaahu daas waan ku leeyahay waa shayaadin insi camal dadkan xasad jealous ma arki karaan qof successful sidoo qofkan waxaan u helay siday ma aragtay horumarkan u gaartay ilmaheeda sisan ugu yihiin ninkeeda si u haysataa naagtiisa u haystaa dadkan meeshay soo istaagaan destruction ayay ka sameeyaan meesha guri qabow haday soo galaan gurigaas laba dadku waxay caan ku yihiin dadka way isku diraan laba dadka isugu diraan guriga markay soo galaan hooyada ilmaha iyo ninka kulli way soo jeedinayaan this is what they do teeda kale waxay kaga danger ay too much kaga yihiin guilty ma dareemaan ana had maanta qalad haddaan sameeyo haddaan maanta shamso si qalad kula hadlo ama hadal adag ku dhaho waa qofku waa naxayaa yani waxaa igu jiro waxaan leeyahay allah ama hadal adag tiri ama qofkaas kaa naxsatay ama ka naxsatay ama yani ani dhan waa murugoona ama qalad it's like ma qabaan dadkan they have no guilt no shame wax ma qabaanba it's like nothing waxay kaloo dadkaanayti ay ma aragtay dadkan mar kasta waxay dadka kale ka fishaan special favors in iyaga dad special yihiin wax kasta ay u qalmaan ma garatay yes it's narcissistic wax kasta inay u qalmaan yani hey come on you know why not isiisid waxaan naya aniga waxa waa iblaya ahay hebel baan ahay waa arrogance and waxaan notice Naimo kaagal waxaan notice is markii xataa wax la siiyo they don't want you feel inaad wax samayso waxay rabaan yani xoog baan kaaga qaatay they don't want that calaamadaha lagu garto waa markaa wax siisid dadka horta dhulka isdhigaan allah aniga qof miskiin aniga way oynayaan inta ka soo galay markaa wax siisid waxay ku dhahaa aniga wax kasto asiisid asxaab kasto u samaysid hadda raayada siinaysa gabar saaxiibada waxa leedahay miskiintaana ay ciyaal yar haysataa waxaan u qabo waxay leeyahay naagtas miyaa had doqon way use gareeya you know يعني عقلي uga qaada hadiyada yani waxa wax kasta oo qofkan u sameeyo waxay u maleeyaan adigan waxa u maleysaa waxa u siinaysaa out of ma aragtay niyadaada iyo qalbigaaga iyo qofkan waa qof dhibaataysan ama waa qof u baahan iyaga laakiin saas uma arkaan waxay u arkaan wax kasta u samaysid birthright inay leeyihiin laga dadka su'aalo kuwa weydiinaya inay i dhaafaan ma rabaan marka ku darso sii qoro waxay leeyihiin can they change qofkaas ma bedelmi karaa haddaad trapkooda gashid see uga soo bixi kartaa adigoo nabad waxaasoo dhan qoro hadhow nooga jawaab marka I will let you know go ahead ma bedelmi karaan haye insha allah muxuu ahaa teeda kale dadkan waxay sameeyaan they have the inability and or unwilling to recognize the needs and the feelings of others ma ku kari kartidba war qofkan waa ka gardaranta war qofkan qalada ku sameeyay war qofka absolute aniga yani dadkan inay dhahaan heerka fircoon uu gaaray ee dhahaan ana rabbikumul a'la wax yar uga dhiman because dadkan arrogance-kooda it's unbelievable yani waa you know adiga dadka dhan waxay u arkaan ma aragtay puppet in a string ma arkino ina kor taagan tahay oo aad soo qaadanaysid ma arkino isheeg dun aad ma arkino qofkii puppetki asas bar dhinac u jiidaysid dadka saasi u waxayaan manipulation waxay dadku sameeyaan yani qiyaamo tiro badan markay hadlayaan dadkan wanacuudu billah 99.9% afkooda hadduu dhaqaaqaayo beenay sheegayaan of course absolutely when they move as long lipskooda hadduu dhaqaaqaayo dadkan beenay sheegayaan waxay sameeyaan dadkan how low they are ma ahan dad kaligood taagnaan kara ma ahan mar kasta waa inay haystaan ani hadda maanta nicim ducaale ahaan I stand on my own ma faham wax haddaan diido oon dhaho this is wrong waxaan waa dulmi waxyaabaha aniga aan oo yani for me as an nicimo ducaale weligeedna ahaa dulmiga iyo qof la dulmaayo iyo dad la dulmaayo iyo wax wrong mar kasta aan waa istaagaa I don't even if I you know kaliya haddaan noqdo xataa meelaan ka istaagaa dadkaasayta dad kaligood istaagi kara ma ahan mar kasta waxay form gareeyaan an army waxay samaystaan dadka gruubaysi wax la dhahay u samaystaan waxaa laga yaabaa walaasha inay narcissistic tahay naagta saaxiibta inay narcissistic tahay wiilka dariska inuu narcissistic waxay ku sameynayaan wax la yiraahdo way ku dadbadsanayaan gruubaysi u samaystaan qofkii marka waxay u galaan suuqay u galaan waxay sameeyaan wax la dhaho character assassination
qofkii waxay ku sameynayaan character assassination dadku ku sameeyaan qofka intay ka soo galaan dadkan marka ama family member ay leeyihiin ama ay wax iskula jiraan dadkaas horta runtii nolol kuma noola the first thing ay waxaan recognize gareeyaan waa inay ka cararaan hadda yani xataa haddii family member oo la goyn karin yihiin waa inay ma aragta distance ay ka ahaadaan because dadkay noloshooda ku jiraan way baabi'iyaan dadkan waxay caan ku yihiin horta marriage iyo dad isqaba ma arki karaan happiness all happiness waxay ku raadinayaan ceebo bay ku raadinayaan yes happiness-ka dadka qofkan uu dhibaa waxaa laga yaabaa hadda inay tahay sodoh yahay waxaan qaba gabdho ilmahooda way ka maseeraan can you believe it ilmaha dhashay yani ilmahaaga waxaa jeceshahay waaba aragnay oo wanaagsan ay ku helaan inaad ma aragta ilmahaaga ma arkino xanuunkooda waa xanuunkaaga kuwaan ilmaha they don't care ilmahooda way ku been abuurtaan cunuga aad dhashay ma dhihi kartaa waxaan igu sameeyay waxaas isoo waxa kugu sameeyay this is what they do these people because they make you feel guilty right they play you guilty the guilt trip qofka ulama guilt trip mar walba waxay ka dhigaan Allah aniga miskiin aniga kan inta ka soo galay Allah aniga waxaan ma sameeyay Allah aniga meeshay soo galaan balaaya soo gashay meeshay su'aal kalan waa ku hayaa qor are narcissistic have a love that ma jeclaan karaan can they love someone narcissistic may حتى ما جعلان كران there's no ما أركينه أبيك نمبا يعني ننكا أما ناكتا narcissistic هديت هاي الهرت بدنا أقول كودا ما لاست كراي ولا كلا عررا لكن هدي نقطة إنه ننكاس ناكتا هيستو أما ناكتا سيتو واسكبح دلنتها she's you know because بنانكي مركو تجو they have million masks قبان بنانكي مركو آدو نكان narcissistic وهبل وأنا شرف لدتك مركو أركو وحنقول لي هذا almost like طبعاً في وجهي ومنافق أو كلام جرت قف طبعاً وجهي بنانكو حدود كل رقمة وفرق إرسال قالوا كعاني كان وهب قف كسو احترامه قولي لي إرد مركو كسو قالوا بحلا سو قال ناكت وعينا وأفلادينا ودلا المها حقة وحنقول لي هاي ديك قفك هذا وتمركي قفك ودعوده ودهور هذا اللي كان مالك قبته لا حتى قبل فاميلي كذا لقيا أنا يدك سوجستان اللي كان بقر كأها منك because this is the way they وسيداين this is how they are قفك وحنا قلنا يا عمل قف confused حتى to the point وحلقيا قبل فاميلي كذا وأنا يدك سوجستان إذا هن أنا بحكي قلدينه وهذا أنا اللي كان وجهك إنك أنت صار معها أنا صار يقول سمية نبرهان فيري هذا كوس هذا اللي كاس بقر وعلها same thing with the حاس كنارسيستيك naagta narcissistic waa same thing banaanka waxay ka tahay naagta taro waa wuu laakiin balaayo waxay ka dhacday wixii la degan horta wixii la degan dadkaas oo dhamaatay ilmahaas ay waxay noqonayaan ilmo narcissistic koriyo ilmo normal ma noqdaan aslam ma noqdaan شالله ضفكن كرادو إلهي بحول لا تقنطوا من رحمة ربنا for example dadkaas caruurtoodi iyo familygooda iyo ninkooda iyo naagtoodi how they can recover though counselor badan bay u baahan yihiin maxay u baahan yihiin yani counselor badan ay u baahan yihiin ilmaha sayti aan ku dhameeyay ilmaha sayti waalidkaas oo narcissistic oo gacanta ku haysto ilmo normal ama noqdaan saddexay noqdaan waxay noqdaan ilmo drug addict kuwa la jooga oo waalid waa iskala jooga they become completely drug addicts because xanuunka iyo dhibka haayo ayay waxaan ku namgareeyaan ay ku baabi'iyaan self medication ha ilmo badan waxa arkaysid dhahay guriga ka cararaay ama use gareena nobody knows ilmaha wuxuu u sameeyay magaran laakiin qofka waalidka banaanka waxa looga arkaa ma aragta ilmo qofka fiican waxa laga yaabaa ilmahaneet inuu ku fakaro in badan ku fakaro inuu naftiisa haliyo because buuq iyo chaos iyo dhibaato iyo wax isku nool cunugan is never good enough wax kasoo sameeyo criticism adiga sanaate adiga doqonaate adiga kana markasta waxa waaye tartan yani waalidkii ilmihiid waa tartamooyaan dadkaan marka teeda kale inta walaalay Samsung for the last 3 years marka narcissistic aan ka hadlay YouTube-kayga aan kaga hadlay wallahi waa yaab inta qof ila soo xiriirtay waxay ka wada sinaayeen kulli qof kasta markaan daba galay aan dhaho hayay qofka noocaan maxuu kala astaamo kale u leeyahay maxaa waaye yani kulli waxay ka sinaayeen hadda waa kulli waxay ka sinaayeen qofkan inuu involved ku yahay shirki qofkan inuu jimin caabudo qofkan inuu jiminka wax u qalo qofkan inuu waxyaabahaas uu use gareeyo kulli way ka sinaayeen qof kasta markaan weydiiyo they worshiping the jinn
cuntaa la siinayaa adi waa dad shirki iyo balaayo ku jira marka that's why I'm telling you waa dad aad ilaahay uga oo ma aragtay iyagiyaaba isku arkaba dadkaan marka la ogaado ma aragtay qofkaasaytii waqti suu ku ogaadaa horta aad it's gonna take a long time intuu ogaanayo laakiin maalintuu ogaado qofkaan hadduu ka fakado ama uu xiriirkiisa uu noqdo xiriir limited ah dadkaan waxaa aad u dhiba don't confront them hadhihin waxaasaa tahay way jecel yihiin chaos iyo buuqa iyo bood noloshooda dhan waxayba ka helaan they live with the drama jecel yihiin it's like they can't live with it maanta dee aamusaa beritu waa inay xataa adiga problemka hadaa ka aaminsan ay ku arkaan iska habi tahay ilaahay iska aamintay doing your own business waxay ku leeyihin maxaa u aamusan tahay ma qaylisid ma aad mashaakil samaysid ma caruurtaada kala tuurtid ma ninkaaga kala tuurtid ma soo hadashid waxaasaa hata aniga naftiga ku arkay dadka qaarkood oo xataa real life ka jooga absolutely dadkaan marka corner lagu luxeeyo la ogaado this is one goortu markino xeray findhaal kala dhaceen oo la ogaado which is gonna take years ma garatay of course maxay sameynayaan marka waxay sameeyaan qofkaaleeti they react with rage bismillah rahmaan rahim waa la ogaaday mogtahay way xanaaqaan marka waxay isku dayaan dadka inay belittle ku sameeyaan dadkaan يعني waxayba ku nool yihiinba oo self esteem iyo ka helaan markasta inay qof bahdilayaan qof dhintay xataa lagama dadka dhintay xataa waa la soo raadinaa dad oo 50 sano ka hor maxaa la dhahaa dunuubta dadka lagu caaya waxay rabaan inay iyaga naftooda isku arkaan superior waxay sameynayaan waa la ogaaday ogtahay aniga qofkii hoos u dhigayaan iyaga waxay koray isgeynayaan dadkaan inta marka nifka ay qabaan waxay tahay they can regulate emotion and behavior يعني قفك وين ما عرفت مركي حناقصن تاعي وأنا سكنترول emotion anger management anger management وأنا سمين كرتد وأنا نفط هذا ما أكل حددي كرتد مركي حناقصن تاعي وأنا دين تابع نشيك تستبها مرينه لكن إيجا there is حدود وحلا الرهوب مالهم با it's like there is nothing أو ما عرفت علينا مالهم أخلاق علينا يسمله دين علينا يسمله it's like ما قرأت حرقة فرنايا مركز أي كتجان one victim وحي create another victim مركز قف كلي فات سدنا they cannot live like without drama without that inay kalaalaadaan dad maantoo dhan yani danahooda xataa way seegayaan because they don't see it anything right absolutely dadkaan marka calaamadihii perfectionkii iyo dadkii wixii laga arkayay hadday waayaan waxay noqdaan depressed and moody depression camalaa ku dhaco yani waa la ogaaday waxoodii waa fashilmeen dadkaan marka secretly they have a feeling of insecurity and shame and inability humiliation gudaha way og yihiin waxay yihiin way iscunayaan daakhilka iska cunayaan way iscunayaan marka dadkaan calaamadahaasay leeyihiin ونعوذ بالله وعلامة وحن كان قفكي كل حجرو I will advise you in a confrontation حكو سمين ترتيب وجا جابسو هدي أنا قف آدم يعني حدود إسكجيال إسكلي متكرر وحارك يساعد إن بدن جورك آدم اللي بعوريها وحجعليهين إن بربريان absolutely that's shaytaanka waay waxa la shayaatiinta ma aragtay diinta dhankeedan ka hadlaya waxa la shaytaanki markii la isku yimaado ay shirayaan qofka shayaatiin aljin qofka laba qof oo isqaba kala furtaaj baa la siiya laana guriyaha burburay that's what they live on it shayaatiin aljin insiga oo sidaas oo kale shayaatiin insiga marka dadka intaas ku sameeyaan dadka waxa waaye il qofkana ma ka haraan ilaa ay dambas ka dhigaan dambas inay baabi'iyaan dee maba baabi'in karaan say u baabi'ina qof ilaahay abuuray say u baabi'inayaan ilaahay abuur maya qofkay ku dhex jiraan waxay ku sameeyaan manipulation you have to understand dadkan waa charming they vulnerable bay iska dhigaan they like oh my god aniga wali dhibat aniga yani aniga qof maskiina aniga saana liigu yeelay aniga baa wax la yeelay aniga wali wax ma samaynin kind of marka dadkan they don't take ma qaataan criticism adduunka waxay ugu naceebiyeen they can reach out maanta dhan wax wacay karaan laakiin maalinta ku tiraahdeed hebel alla wax nafta ka dhacaysa
iyagiiba ma aha qaracan seeba la idhihi kara yani ma qaadan karaan qaladaadkooda ma qaadan karaan. What about qof kale adigoo ayagaba haysanba haddaa qof kale agtooda ku ammaantid, they don't like that as well. Absolutely no. Anaaba kun wax kastaba waaba iyaga, it's me. aniga yani waa camal shaytaana wanaaga dhanna wuu dhibaa. Absolutely wax anything wanaag ah, family, shaqo, success, dadkan waa daasoo kule waa shayaadin insi camal aniga ku tilmaami karaa. Marka qofkii dadkaas ku dhex jiro mar walba kaartaada akhriso, dadkan ka fogow, ha cabsanin. Marka la ogaado way adigu way kaa tagayaan, laakiin they form qof kale ku sameynaya hostage hadana adigi waa ka maba daalaanba haddana waxa waa they never give up. Marka dadkan calaamadahaas ay leeyaysaa soo ogaada mana isbedelaan. Qof haddaa turaabkooda aad gashid, haddaa whatever reason many of us adiga ku jirto aniga ku jiro, how lugta see uga baxsan karta? Aniga first sign of abuse lugtaan kala baxay, marka waa la ii dabagalay, waxaa la yidhahay tii carartay, tii samsamaysay waad carartay, because you want to save yourself, you don't want to be to that mud. So adiga ii sheeg haddaa aniga dadkan taraabkooda fiiri dad ilaahay horta waxa waaye dadkan aniga I can read them, waa akhrin karaa. dad hadda social media ku dhex ororday 3 sano bara akhristay waa akhriyay taraabkooda anima dhex gelin. I was just a helper, kor kale ka caawinayay. Marka arkay this calaamadahan oo arkay calaamadii narcissistic aan arkay, caydii dadka la caynay arkay, waxa waa I took myself out. Wali group eleen ma dhex gelin meel eleen because anima hostess ma bali haysan karaba. Marka waxa la bilaabaya marka qofka uu ka fakado, that is the time oo la bilaabo slanderinka. Markaasaa la bilaabaa hiblaysan waay halkaa iladaada iyo hooyada iyo iyaga dhanba hadday xataa tahay walaalka, hadduu xataa yahay saaxiibada, hadday tahay xataa coworka dariskaaga, hadduu qofkaasayt markaa ogaatid nooca uu yahay oo ka carartid, markaasaa waxaa la bilaabayaa character assassination. Dad badanna waa calaamadaha aan Soomaalida walaal ku arkin waxayba tahayba sida hadda adiga aayadda akhriis qofka markuu la ataaku bifaasiqin binaba'in fatabayanu asan tasiibu shay'an la isticmaalaba taas is exactly qofkii wixii laga maqlay adiga lagu la imaanaha heblaysaan dhis heblay waxa ay sheegayso ina ma ogtahay adiga, do you know is this a fact? ما يعني قف حتى أو كي ما أنا ورك فيري يعني قف يعني قف بين لجو يقان أو شرف أن لجو أقون ويان مرك هرب ورك وحي قبره وحي كويدين يساعدت كسيداسة ما biological أي كل شيء مية جين مية مسا learned behavior ويان حيتها دتك وحال هلا بس يابد وحال هاد إلا so far دتك psychologist anyway هذا study عن كوكينا وحكى قاعدة مية clinic professor أو قوستري استري مركو حل آخرنا إنه واحد facts ولا صوباري ولا صوماركتي ولا صوب حي واحد غف إسكيري معهن research دتك واحد research سمي دتك نوعان وحالي هذي either waa biological oo ma aragtay waa wax ay family-ga ma arkino ka keeneen oo hiddo camal ma laha biological qof ama qofkan waa laga dhigi karaa sometimes. Hadda waxaa jirto 5 ciyaal haysataa, ana hadda for instance 5 haystaa. 5taas hal cunug aan waxaan ka dhigayaa boqor ka dhigayaa. So waa la form garaya qof dadkan waa la sameeyaa. You create the monster. Okay. Cunugaas maanta waxaan ka dhigayaa wax kasto sameeyay, wax kasto qaado, wow, wax kasto waxay wow markuu qaldama qaladkiisa ma u sheegay, waa qarinaya cunugii marka waxa uu noqonayaa wow, you know. So you can create ada xataa waalidka xataa create gareyn karo. Haddana hadday kale waxay kala dhahaan qofkan dhibaato badan oo ku soo dhacday inay saan ka dhigtaan waa laga yaabaa. Yes, so that makes sense. saasay dhahaan marka laakiin dadka aysan help because helin or counselor iyo maxaa professional help aysan ku soo helin, because a lot of people are dhibaatooyin badan ku dhacday moogtahay. They are not narcissistic, they don't destroy people, they don't destroy houses. dadka dhibkooda kuma farxaan, marka waxa weyn qof dhibaatooyin badan ku soo dhacay laakiin aan help oo maxaa professional help aan helin weeyaan. Okay, go ahead. gabadha ani maalin ila soo xiriir dadka ila soo xiriiray runtii oo markaan ka hadlay programkan runtii wiilal gabdho
gabar waxay tiraahdaa Naciimo master degree aan haystaa runtii programkaaga markaa daawaday educated person waa waalan gaaray tiri markaan adiga ku arkay oo ka sheekeynaysid exactly waxa ku jira I was literally guriga waalida ligeeyaan ku dhawaayay tiri because qofka noocaana asxaan waxa la yiri qofka hadaa wanaajisid soft heart noqonaya wanaaji dadka wanaag dhana uga daro يعني نحريستا waxay target gareystaan dadka naxariista leh waan ku tuntuntaa marka waxay tir qof kan oo nolosheeda ku jiro oo saan ah yani qof family member u ahaa oo ikay maaragtay maanta wax kasta u sameeyay wax kasta wali caadi ah gabadh yani stress iyo gurubaysi qofkii loo sameeysanaya afarta geesa laga soo galaya qofku xulay war aniga ma qaldan yani waxa noqonaa qof waalan camal qofku aaminay male of course adaa iska shakinaysid marka dambe adaa iska shakinaysid ha adil marka qofku waxay tasaasan ku jiray tiri laakiin marka ay siisay toolska ah please dadkaaleyti ma isbedelaan adiga ka gaabso you know hey waxa u qaban karto u qabo but markasta waxa iskaga haysaa oo dheer ma aragtay like literally arm length qofkaas waa ina ku haysid weligaana qofkaas ha aaminin because inta nice iska dhigaan qofka soo ceshaan haddana trap kale geliyaan qofka hadana waxa waa isbedelas ma isbedelaan waa sida domestic abuse ko kala waqtiga intuu hadda naagta dilo ay hadhow dhahay I love you you made me upset you started you did that yeah absolutely qofkas waxay ku sameeyaan hadalkii qofkii isaga dhibaatada u geystaa isaga ku celiyaan yani waxa noqonay qof adiga islaal miyaa waalan tahay amal ada iska shakiyaysid isaga qaldana marka tiraad war qaladkaana iga sameysay you made me do it qofkii waa exactly tactiga isticmaalaan ma garatay qofkii noloshooda ku jirana waxa waaye qof kasta they discard people like garbage amal ma qofka qiimada lama lahanba faraan ma noqon karaan waalid ma noqon karaan yani dad xiriir aliyay yani mar kasta waxa waaye superior iyo slave iyo qof iga hooseeyo iyo control iyo hate iyo waxa weeye happiness ma arki karaan hatta waxay isku dayaan inay controlaan dadka aan la hadlaysid dadka aan la sheekaysanaysid yani only la hadal dadka aniga approve gareeyo because you know hey you know halkaas ka kaaga hatta dadka approve gareeyaan saaxiib ma noqon karaan waa isku diraaba lagu dhahayahay dadkan hatta markay la hadlaayaan fiirso ula hadlaayaan it's like hey la hadal aniga ma la sixi karo يعني وادتكاسيت وحا sometimes leedahay war qofkan ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya waa in adoon u noqoto abdullah waa in noqoto يعني xiriir ha dhex joogi aan walba ka tahay qofka hoose يعني bilaadan adiga oo kala ah you markasta hoos يعني qof kasta waxa waa everybody deserve respect marka naftaada qiimeysid and everybody else will respect you and waxa la yiri you teach people how to treat you adiga bari dadka kula dhaqmaan absolutely you teach them adiga waa ina boundary yeelatid hey fasayla dhaqmin hey this is you know waa ina qofka xuduud u yeesha laakiin dadkeena badanaa waxa waay anigu iska ixtiraam badanahay ani maxaa waxaas ma dhihi karaay hey come on adoonan caytamin waxba dhihin laakiin xaqaaga yani hey istaag magarad ilaahay baaba ku siiyay inaadan humiliation لقد أكرمنا بني آدم إلهي ووكو كرمي regardless your religion or regardless who you are your race your ethnicity لقد أكرمنا بني آدم وحاسو خلق إلهي بني آدم كو عقل سي وكرمي مركا أدونس إن لا أقل هذا ما بقى هبا humiliation absolutely ها إن humiliation إيه مالك بهدلاي أدونس إيه ما عرفتنا أقلاتي ما I don't care قفكو يحي ما قرأت وأنا self respect qofka ma gabadha ama ninka maalinta adiga isqiimeysid that's the day oo lagu qiimeynay bar dadka say adiga lagu la dhaqmi lahaa dad adiga ku xadgudbin aniga Naciimo ducaale ahaan waxaan leeyahay dadka ha ku xadgudbin Naciimo afka idinka laga meelano laakiin ma accept gareeyo any trash from nobody iska dhaaf aniga dadka kale waxa aniga adina soo galiyay dadka kale sida gabdhihii masaakiinta gabadhii dhahaysay wallahi ilaa hadda way igu dhigtay gabadhii dhahaysay ina isdilaan rabay imagine that يا وحاسك آموسي كارا ده يا كآموسي كارا أنا قاعد قفوا إلى صحيح رتضها يقبل واحد بريتش كأجستاج ما كأجستاج بريتش أنا ربينا كسكتورو يعني this is مركز ضد كان كل احترتد literally like قف وارد قف يوم الحين سوح يعني ضد كان they mess you up ما فهمت because 1 minute down 1 minute وحاول يكسو جدنا the next minute وحاواني the next ساس قف كحكوا هايان
يعني control مدح ما قرأت مالين ويكو هدديان أو تهديد إيو محل blackmail مالين ويكو أويان so you are confused yourself you don't even know how to react that's why people are confused absolutely لكن هدرت وحواي Soomaali haddaan nahay walaalayaalow dhibaato badan aan soo marnay dib badan aan soo marnay anaga inaan u dulqaadano ma aha magafayaashii joogay meelahan dhibaatadii iyo qoryihii la isku qaato la soo qaxkiyay maanta inaan u dulqaadano yacni magafo meel noo fadhiyo oo ma arkin hooyooyinkii iyo ilmihii iyo nobody safe from them no waa inta istaagnaa oo hadalnaa ma garatay yacni dadka Soomaalida sometimes walaalayaal marka qaar horta dhaqamadooda 95% anigu waan nacbahay ma jecli only waxaa ka qaataa wixii diiniyan iyo dhaqanka wanaagsan inta badan waxaa waa dhaqanka upside down u shaqeynaya inta kala ka tago upside down weeyaan ha because xagee lagu arkay qof dad dhibaateynayo oo aan laga hadlaynin ama la qabanaynin qofkii u istaagay oo raba inuu hadlo adaa lagu amsiinaya ka qabto oo lagu leeyahay adi maxaa kaa qaldan waaw adi aamus qofka yani platform qofkii la siiyo qof kasta afkiisa la qabto waa hiilo waay fiiriya waa hiilo waxa oo munkarka adoo joojinaysa hadii lagu yidhi qofkaas uu hiilinaya waxaa lagaaga soo gelaya mataqaana ayaga waa narcissistic qofkaas wuu xanuunsan yahay qofkaas wuu dhiban yahay qofkaas waa victim is that green light though aba victimka ku sheegaya fiiri muxuu ahaa shamsoy qof dhibaato soo maray oo dadka oo soo dhibaatada waxay tahay dadka ma xataa meel qof lagu dhibaateyna inuu istaago ma jecel iska daa wax kale marka qofka trigger uu ku sameynaya trigger waqti dhibaatada soo la dhibaateeyay he needs to find healing isaga naftigaaga hadii ay tahay anyone waxaan kula talinayaa dadka walaalayaal wadamadan aan joogno Soomaalida badanaa dhakhtarada iyo in badan waxa arkaysaa markaan ka hadlo postpartum depression ka hadlo ama gabdhaha markay umulaan depression ku dhaco ama depression ka caadiga oo dadka uga dhaca ma arkino yani event depression iskama imaada waa maskaxdii oo culays tira badan koray waxa way thinking yimaada ama marriage ka yimaada ama ilmaha ka imaada ama loss loved one I lost garaysay oo shaqa lost garaysay oo shock kugu dhacay ma garatay marka wiil hadda ka hor arkay wuxuu dhahay Naciima abaayo dadkayga Soomaaliya hal mar amel inta soo qof oo family memberkayga ku noqdo wiilkii marka qacdi loo sheegay maskaxdiya ma aragtay wuu meeshii la rabay wuu naxay marka it comes with something iskama timaado marka walaali hadda qof saasa tahay يعني وإلى أديت professionals ودمدان أن جوجنا ولا ليالو opportunity يا كيستين كار عاف ماذا هيستين ماله ليد عاونا يا هيس أنا حاليا educate yourself لو قدها ودك أجوكتان برت قولها اسكو حرين لو قد ودك أجوكت تبارو أديك اسكو ترجن أديك ما أكيد أفكار كل البح dadka badan waxay ka baqayaan qofka turjumaanka inay wax u sheegtaan dadka Soomaalida waa taqaanaa many of them wadamadan qof inta u durjuntid hadaad Mareykanka hadaad banaanka laga maqlo waa lagu xarig waa because waxaad saxiixday moogtaa waxaad saxiixday maxaa confidential waa saxiixday sax ma sheegi kartid gabadha hadda Minnesota aan joogto 2 sano lagu xiray wax dadka gacanta ugu xooda ku heysida banaanka la sheergareynayso you can't do that marka hiba privacy wax la dhahaa taagan oo adag oo la dhaqaaqin karin oo aad ma aragtay u ilaaliya marka walaalayaalow naftiina ma aragtay la tacaala professionalka aada gabdhaha in badan waxay ku leeyihiin walaal Naciimo yani waxyaabahan cilmi dhagoolka adoon wax ugu soo sheekay ma garanayo abaayo hadaan dhakhtarka aado postpartum kaas ay haayo on ma aragtay aan aado ilmaha laga qaadanaya la yiri la yiri ma rabna facts rabna where yani way ku caawinayaan ilmaha ku lahaynayaanba waa ilmaha lagu qabanayaaba dadkii waxa lagu sii ridaya xanuunkii haayay waxa u sii dheer baqdin tira badan oo fear ah misinformation wa dhakhtaradii aadamay waa la yiri umad waa la yiri la ku socoto waa la yiri yani come on I need pick up phone and ask dadka waxaas hayo qof baa lagu keenaya caruurta xataa kula haya oo lacag la siinayo intaad help raadsanaysid waxaan kale oo Naciima ku weydiin lahaa our people waxa u diiday professionalka waa taabo qof waala markuu dharka iska tuuro unbaa tago meeshaas psychiatric or psychology or therapist marka iyo dadka diinta ka soo gala for example qof hadduu ku dhaho qof aan la sheekaysanay wuxuu yiri mataqaan qofka muslimka ah depression kuma dhaco why so dhankaas igala hadal bal please dad bal hadda waxa dhageysanay maalin hore wadaad oo
ingiriiska jooga I think carab inuu ahaa wadaadkaas magaciisa ma xasuusta hadda maalin hore wuxuu soo galay yani dacwo waxay wuxuu dhahay ilaahay ii dambi dhaafiro ilaahay ha iga cafiyo wuxuu dhahay I was not educated about mental health yani waxba kamaan baranin marka dadka badanaa markay mental health ka sheekeeyaan depression waxaa u qaadan jiray hey ma tukatid iimaan ma lihid wax ma lihid aan dhihi jiru yiri laakiin so many people are suffering in silence waa cilmi waxba la ibaru yiri hadda dhakhtaraan la xiriiray I self-educated myself cilmiga lagu sheegay ma hayna markina jaamacad dhex fariisan you can self-educate yourself librariga tii kartaa adaa wax isbari kartid buugaag akhrin kartaa marka wuxuu dhakhtaraan la xiriiray waa la ibaray wixii marka wuxuu dhahay hadda please so many people are suffering from depression iyo dhibaato fadlan wuxuu yiri iskuma xirna ilaahayna ha iga cafiyo wixii hore dhihi jiray marka stigma qofka lagu dhijiraa waxa leeyahay hadda magaaladan aniga hadda Minnesota aan deganahay laakiin Seattle not long ago waxa jirtay laba wiil labadaba ahli diin ahli salaad hadda Facebook gashan xataa Seattle wiilasha isku dilay waa arki kartaa wiilal ahli sunna ma sha Allah laba wiil midna dhalinyaro wiil dhexdhexaad labadii wiil subax kasta masaajidka wiil waxa la wiil iska aamusa masaajidku imaada salaad ku tukada salaad kasta uu tukan jiray marka nobody knows what people dadka what they going through ma garata chemical imbalance uu dhici kara oo natural the next day waxa la arkay wiilkii guriga isku dhexday oo isdaldalay wiilka kale sidoo kale garka inta slaag wiil ehladiin kaaliska marka it have nothing to do with qofka ma aragtay many times yes mar walba waa ina diinta u carartaa depression haduu haayo markasta quraan isku akhri adkaartaada akhriso laakiin sometimes at the same time get help yes sometimes get help talk to someone marka ugu horeyso diinta ku carar hadaa tukan jirin tuko hadaa adkaar akhrisin jir adkaarta akhriso adkaarta salaada subaxii la akhriso subaxii tan habeenkii akhriso adi isla tacaal hadii intaas wax ku tari weydo waxa u baahan tahay sometimes maskaxda inay daadinayso muxuu dheecaamo oo ka badan wixii loogu talagalay inay daadinayso marka dawada marka lagu siinaayo ama maskaxda xoog u shaqeynayso that's what it is yeah marka you need that in balance lagu sameeyo mana seexanayso moogta markay maskaxdaada aad u fakarayso hurdada markay kaa tagto that's a chemical imbalance meeshaas uu ka imanaya ma seexanaysid depressionka hadda calaamadahu depressionka leeyahay waxa waaye excessive worry qofka inuu iska walwalo oo gabdhaha waliba marka ilmaha dhalaan oo cunugeeda dhasho inay walwal shantii gabdhood oo Mareykan ah hal gabar u kaga dhaca so it's a lot it's a lot qof dhigi kara ma soo marin I don't think anigan waan soo maray anoo shanta salaadood tukanaya oo wax kasta tukanaya because waxa weeyaan rat race kan aan ku jirno subaxii soo kacaysa salaada tukanaysa bas aad raacaysa waa imanaysa you don't know waxaad noqonaysaa machine moogtahay saa machine u tahay marka dambe hurdada kaa tagaysa waad fakaraysa what I'm doing markaad fariisatid marka it's not ceeb ma aha shaqo kasta laga shaqeeyo waxay leeyihiin meel consultant ah oo numberkaaga shaqada way ku dhedhegan tahay qof la hadal confidential ah haddaa xataa dadkaaga inay wax kaa sheegaan oo lagu dhahayo diin ma lihid kan qof professional ku dhegaysanaya lala hadlaa so it's a normal way we have to normalize stigmada aan ka qaadno depressionka iyo anxietyga iyo chemical imbalance all mental illnesska we have to take it is ceeb ma ayaa lagu wacay naag depression qabta kolley dadkii hadda they're not there yet weli meeshaas ma taagna inay dadka ku caayaan oo way caayi doonaan way caayinayaan waqtiga hadda who cares though you get help laakiin waa inaan sameyno qofkii inuu privately adoo cidna u sheegin ana I will advise inay cidna u sheegan exactly dhakhtarkaaga aad privately waxa ugu soo dhamayso because waxa waaye dadka sometimes xanuunka waxa uga daran ba xanuunka gaasibka naagta hakininka waalida qaadata dawaa u jirtahay taasa uga sii xanuun badan ba marka I will advise you markastana dadka waxaan badhahaa walaalayaal wixii private idin ah ina waxa fiican ba just qof kasta iska dhaad ma fiicna wixii inta bari lagu soo celin lahaa oo ma aragti lagu takoori lahaa private dhakhtarkaaga u aad waxaaga soo dhamayso therapy hadaa unless you want an example to others you are strong enough in position to come out yes your own narrative marka laakiin adiga soo dawoodid waa can you imagine qof aan wali dawoobin waa marka dawoodid waan ka soo baxay dadaan daweynaya adiga yaaba wali
naftaadii dhayin markaad dadka caawinaysid maraa soo adiga isa soo waxaysay waa hadda gabdhaha oo Mareykanka oo kufsi waxa soo maray way imaadaan iyagoo soo dawoobay ayay wixii ma arkin oo dadka laakiin hadda weli emotional noqonaysid oo ooynaysid oo qofkii xataa wareysanaysid aadan hadalkiisa ka sugi karin adaa weli xanuunsan ma garad marka adiga marka hore isu soo daaway calaamadaha walaal ee lagu garto postpartum depression ka gabdhaha marka ilmaha dhalaan waxa waaye inay qofku hurdadii ka tagto ama inay hurdadii ku badato gabadhii waxay sameynaysaa ilmihii yaraa ee dhashay xataa inay inta caanasis xagga isaga tuurto many times xataa hurdo la'aan hadday dhacdana caafimaad darro waa bilowgeeda waa waalid bilowgeeda inuu qofkii maskaxdii dhib jira ma lahan laakiinse maskaxdii qofkii u joojin waayo fikirka iska wareegayso camal wuxuu sameynayaa qofkan hurdo tira badan wax kasta waa opposite wixii dhexaadba ma baahanba qofkii maantana iska hurdo dadka iyo buuqa inuu dhibsanaayo inay ku soo dhacdhacaysa xataa hopelessness wax la dhaho inuu Allah hadda adduunka ka tagi lahaa qofkii saas u noqonaya empty u dareemaya qofkii inuu laba mid noqdo cuntada inuu zaaid u cuno qab dareemi waa dharagti dhahay malahan iyo inuu ma arkin cuntada dhanka go'o qofkii qaleel noqdo marka hadda calaamadahaas isku aragtid more than 2 weeks ma aha hal maalin laba maalin more than 2 weeks ama 3 weeks please caawma u baahan tahay habaqin dhakhtarka kugu soo horeeyo tag waxa tiraahdaa hey hadii ina isdilaan rabaa iyo waxaas that's dangerous markaas ilmaha waa wax lagu qaato laakiin hey ilmaha dhalay way og yihiin gabdhaha ilmaha dhalay inay postpartum depression ku dhaco waxaan rabaa xoogaha hurdadii iga yaraatay kiniinka hurdada lagu siinaya fikirkan iyo walwalkan iyo dawayro ku dajisal waa short time wixii jirkaagu ka baxaya marka caafimaadid cuntadana waa ina iska bedeshid sometimes cuntada ma arkin oo baaragta aan fiicnayn dhibaato way keentaa exercise aad samaysid wabil intaasaa kugu filan hadii ma arkin oo Soomaaliya rape iyo dhibaato badan aa soo martay gabdho badan oo ila soo xiriir childhood dhibaato badan ay soo mareen waxa u baahan tahay therapy qof yacni hadalka aa u sheegtay halkaas uu ku ekaanaya waxa lagu siinayaa tools oo baaragtay lagu caawiyo saan samee adoo hadalkaagii bari kugu soo noqonay confidential ah ma fahamtay wax kugu soo laabanaya ma aha marka insha Allah saasa idinku la talin lahaa walaalayaalo qofka hal is caawiyo qofkii dhibaataysan kor ha loo soo qaado war maalinba qof waxa nolosha garantii ma aha maanta qof waxay sabiro qof waxaysan maanta xanuunka iyo dib iyo qof waligiis isku jiraaya ma laha ma haysano ina is caawino weeyaan waxyaabaha la isku caayayeen xanuun la isku macaayo muxuu ahaa gaajo iyo fara laga hayo iyo waxba laga duubay qofkisnimada ogolaan fara war caay hadda waxtar qof wax ka qaadaysan cimadu calay ka qaadilay 3 sanaad waxa lagu hayaa saan waa inta ka boodinta no sharaf adiga leedahay iyo dadnimadaada iyo waxa tahay qofna kaama qaadi karo you are who you are at the end of the day waxaadan ahayn maxaa la dhahaa aadan naftaada ka ogeyn waxaadan naftaada ka ogeyn qof kale kuma sheegayaba qof narcissistic oo beenta alifo oo dadka beenta qofka waxa narcissistic calaamadaha leeyahay wanacuudu billah wadaasoo ku leeyahay waa shaadin insi okay maxay ka faa'iidayaan dow markay dadka challenge ka sameeyaan maxay ka faa'iidayaan qofka been toos ay rakibaan beenta xataa been yani run dhow been toos al rakibaya waa la rakibaa saytaa lor sheekada laga dhigaa yani wixii qofkii هاي دتك دقنياش waxaas dhageysanaya oo meesha ka qaadaya maxaad dhahay dadkaasay oo diinta xataa ogeen waxay ka dhahayso على فكرة هل وحنا كوجد درسارة آيات أن كل شيء إذا أتاكم فاسق بنبأ بالفيرية سيد عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بآيات أسكسو دكتي دد بالفيري إنا نقدينين حتى حدات النبي عليه الصلاة والسلام أحب زوجاته عليه الصلاة والسلام بالغوش بالفيري يعني إن قفك فاسقة وحول وسكشيء بوزينا لغوشاق imagine that رسولك عليه الصلاة الرسول بقلبه يسيء لبي وأبهد لهذا فرندي يسأها قريين تكبيري بالفير يأثر وكأثرين يا like it or not رسول عليه الصلاة والسلام وحي كسو دقي is أثر إلهي با 7 سماوات كسو بريئي قريئي مرك الدين تين وحول بوينو شاكتي هدا شريفتها هدا حنتها حاسد كوحو كوشي قفك شرف المياه جر سيدة عايشة إيشك قفك شرف أنا أديك محانها أكتر nothing الزنا لغو شيء رسولك عليه الصلاة والسلام قريسي بحاسكي سأهيد صديقنا ودلي أبو بكر الصديق رضي الله عنها مركا محا أديك محاد كبقيسا مركا
هذه سيدة عائشة الزنا لو شيء أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أوقبه أذيك محاد كبقيسة أذيك محاد كبقيسة قرآن كم آخرين يسار dadka dhageysta tiri horta walaalo shimbir kiisu la duula qofka aniga aan dhageysanayo oo qof waxa igu soo kordhinayo inuu yahay hadda shamso maanta dhan ku dhageysan karaa waxa igu soo kordhinay youtube ma sha Allah waxa igu soo kordhinaysaa xadiis waxa igu soo kordhinaysaa quraan waxa igu soo kordhinaysaa wax cilmi naafica yani cilmi wax laga naaficayo ma garatay صح character fiya wax ma ka baran karaa laakiin se qof intuu meel soo fariisto maanta dhan dhiga igu saqeynayo and no progress wax aan ka faa'iidayo adduun wala aakhiro ma aragtay marka ka baxrid xataa adiga oo waxa way laboonaya ka baxaysa oo guilty dareemaya yani qof la caynayo iyo yani gossip yani dibka jiraa wuxuu yahay maanta waxa bilaabat walaalayaal in xantii iyo dulmigii iyo dhibaatada lacag lagu sameeyo oo meel loo furto oo la dukaanba loo furtaba oo lagu gadaayo bahdilaada iyo sumcad xumada iyo slanderinka oo dukaankaasna la imaanayo waa zaman yani waa waqti maqluub waaye uu sheegay mar kastaba mar walbaba waxa waaye qof kasta choice uu leeyahay there's always gonna be people oo waxaas markino dadaab iska jecel walaal aan tarbaqashka iyo xanta iyo maxaa la yiri daday ugu baxda laakiin for me ani nacima ducaale ahaan waxaas aniga maba igu fi meel xataa qabiilo lagu caayna ixtiraamta arkaysa dad iska qabiilo iska caayna wali qabiilo meel lagu caaynaay ma ogaan jiray ilaa balaayadan wax igu baxda ma ahan ma garat is not marka qof kasta waxa waaye adduunkan choice uu leeyahay you choose adiga because you become one of them hada waxaan aan tarbaqashkan maanta aad dhageysatid wallahi wiila maalin waxa xasuusta askari Mareykan ah waa dhageystay qoftaan u dhageystay fiidiyoyadeeda la turjumay markuu wuxuu dhahay wiil dhalinyaro ahaa is a police officer Mareykan markuu wuxuu dhageystay cabaar u dhageystay fiidiyoga la turjumay markuu wuxuu dhahay do people watch this yani it's a garbage it's trash it's a trash the people find this entertaining yani qofkii oo nin cad ah waliba muslim ahayn ayaa ka xumaaday qof dad dumar oo la caynayo yiri dadkan waxan bay ka helaan yani fiiri yes way ka helaan iska badadiin xaq iska dhig bil'aadnimo xataa ma aha ma fahamtay qof dhibaataysan oo ku yimaaday ama qof dhib ku sheegtay waxa waaye inaad ma aragtay dhibaataysid ceebaha bil'aadankana daa asturtid ilaaha ceebahaaga asturaa ilaaha ceebaana ha asturo ilaahayna ma fashilo ilaahay nagama dhigo dadka dhibaataysan ku digta because you never know berito shamsay maanta aniga waa kana maanta la dantahay berina way ka warwareeraysaa you don't know yani adana waxa ogaaday ma taqaana shamsa dulmiga iyo dulmiga soo degdega ala fikra soo degdega adduunka qofka ku arka marka adiga meel dad lagu dulminayo qofkaan dulminayo waxda ka qaban karin afkiisa waxa ku fiican meel dad lagu dulminayo ama hada u hiilisid ama hada ag istaagtid waxa laga yaabaa berito inuu dhibaatadaas adiga gurigaaga qurbahan adoo joogto inta ciyaar haysatid in ilmahaaga musiibadan ku soo noqoto in hooyo ilmaha la caayayo la dhibaateynayo in adiga kuwaaga ku qosqoslaysid oo in ilmahaaga ku soo noqoto marka waxa lagu yiri walaalka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay laba goor uu hiili marka laga gardaran yahay oo gardarada ma aragtay dadka gardan uga hiili marka labaadna uu hiili markuu gardaran yahay gardarada ka qabo ma fahamtay marka haduu yahay qof aan ku dhageysanayn oo gardarada ay ka qaban karin waxa muhiim ku ah inaadan gardaradaas iyo dulmigaas aadan uma arkin oo aadan u kaalmaynin oo meel hooyo lu Soomaali lagu caynay meel gabar Soomaali lagu caynay meel ilmo yar miskiina lagu caynay aadan dhex fadhino inay waa ku taageera it means yani waxaan in aadna raali ka tahay of course aakhir waa lagu keenaya waxaas in iska baxayaan maad moodaa wax qoraysid oo dadka gacmahaanay faraha ku qorayso isdhaysid laguma arkayo yani fiiri ilaahay subhanahu wa ta'ala bil aadan ayaa sawir baana soo qaadatay fake account oo soo qaadatay bil aadan xun oo miskiin oo Abdullah miskiin ah ayaa ka cabsatay oo iska qarisay laakiin aawi ilaahay subhanahu wa ta'ala aawi marka wax walba og ilaahay wax kasta og soo kuma jeedo gacmahan berito way kugu marqaati furayaan gacmahana beri kugu marqaati furaya dadka ku caynaysid marka meel dulmi lagu haayo ama dad lagu dulmaayo
believe me asaameynay kugu yeelanaysaa maanta waa noo jeedaa Minneapolis aniga degan ciyaaladii inay darbiyada opium iyo oxycontin iyo heavy drugs u dhimanayaan marka sometimes caruurteena iyo caruurta muslimka waalidka wuxuu geysto ilmaha masiibadaas guriga ku soo noqotaa maanta aan haddaan dhibaato dadka soo dulmo oo ummadda iga nabad heli weydo kan xago kan cay kan dulmi kan jiid gurigayga ku soo noqonay wallahi gabar hadda ka hor ingiriiska deganeeda waxay igu tiri Naciimoy eraygaas gabadhaas ilaa hadda ma ilaawo ayaamahan ma arkin waxay soo wacdeen hadda ay maqashid soo wac qisadeedaas waxay igu tiri abaayo waxay dhahday Naciimo I love my husband I love my children waxa waay aad waxa haddaan gabar dad islaameed aan ku mashquulo caayo waxaan ka baqaa masiibadaas ninkayga aan jeclahay ilmahayga aan jeclahay gurigaygaas aan jeclahay inay iga soo noqoto marka gabadhaasay wallahi eraygeedaas anoo 3 sano ka hor igu tiri wuu igu dhagay marka naftaada iyo gurigaagaan buuxa iyo barwaaqadaada u cabso dadka waxaas dhibaataynaysa islee dadku ma arkaan hatta haday dhibaato ku haysata adiga dhibaatada qof kale inaa caysis kaaga ma baxaysa ilaahay bari inuu caruurta ku soo hadeeyo we are not perfect our houses as well doesn't mean dadka kale aan xagxaganayna kuweena ma u ducaysan ilaahay inuu noo soo celiyo dhib hadduu ku haysto horta yaa loo cararaa dhibaatada ilaahay ku haysto fafirru ila allah ilaahay u carar ilaahay u carar laba absolutely masha Allah ilaahay isku dulle بالآدم نوح عم بديدنا هيبة بالآدم حنا مسكين ما أنتوا ضاع عباديس يا دادو يا ناس دا محوكو قبن كران ورأدون كلنا هدي الاسكو كان واسكو داينا يحكو قبطان هو ما قبن كران إلا بإذن الله إذا كإله يسلكو قبن ونعم بالله هدي أدون كلنا اسكو إمادو واسكو دايان إني وحكو لباتريان هو ما قبن كران إلا بإذن الله إذن كإلهي كلي مرك أنا تولس كي هستو أقف مسلم أو إلهي ما أركنه إكرامي إن البلاد دضاو يعدل لي ما بقيت هاي أنا محبان ما قرأ وحقيقة هاي ما بقى يعني استعيش نمو because إلهي سبحانه وتعالى هيستا عبد الله هيستا هذا يدبكو هيستا حق أقل كياك قادكر إلهي سوما إلهي أريد أنت بني آدم سهر فريسانيست horta abaa diinta way noo sheegtay dhibaato haday guriga ka haysato horta dhibaatada nimanka inaaga qalyaalo ninkaaga go'a u tahay isagana go'a ugu yahay ninka maanta waxaa balay waqti in inta soo fariisto guriyihii nimankiina qabay iyo naxaasaskii laga sheekeynayo ninkayga saana sariirta saanika yani waxaa sayta subhanallah war hatta dadkan aan la joogno the west world aniga inta Soomaali wadan muslim ku noolaa iyo wadan gaala inta ku dad nan muslim aan la noolaa nolosheeda waxaa badan nan muslim inta la noolaa ma fahamtay 28 years aan nan muslim country ku noolahay ma fahamtay inta yar aan kaga noolaa wadan islaam kaga noolaa marka walaalayaal waa inuu qofka ma aragtay xishood qofka haduu xishoonin xalil waxa doonto samee إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يا حشود كدو كاتغو يعني حتى هذا waxa arkaysa to the point gabdhahan Soomaaliyeed afkooda waxyaabaha soo qabanayo حتى gabdhahan aan muslimka cadaanka afkooda soo qabanaynin حتى hadii laga sheekeynayo yani cilmi ahaan looga sheekeynayo private part in la sarbeebo oo ma arkino aan la soo qayxin ma fahamtay oo wixii si dadban oo cilmiyeysan looga sheekeeyo wax sariir ka sheekeynaya yani dad islaam aan nahay inaa sariiraha iyo ka sheeka hadii dib uu yimaado oo dib uu jiro waana loo sheegay meesha aadeen there's a way waxa waa inaad raadsatid familigiisa wixii ay ma aragtay ay saas loo xaliyo dad yani diin iyo aqli confidence of labadiina yani fiicnaantiina rabo oo qalbigooda ku jiro qof kasta ma aha no familigaaga qof kasta ka dooran qof waxa jiro aniga iska war ku dhahay ama yani qof maslaxadaada raba qof miisaaman oo aqli iyo diin u saaxiibo al raba wixii the big picture fiirin kara ma garatay marka waxa arkaysa in badan hadda marmarka qaar waxa arki jiray hadda qols oo dad YouTube Facebook qol hal qol kuma jiro qolaan waa hor ku jiray rush hour ma qaxli jiray gabdhaha waxay soo qorayaan anonymous please ninkayga waxaan igu sameeyay ninkayga asaan igu sameeyay ninkayga marka dad aan cilmigi u lahayn family waxa waa family issue wax aan opinion aan ka bixin kartid ma ahan meesha ilmaha jooga dadkaas intaas kun oo qof aan la soo dhigay marka dadkii marka qaar waxaan hadlay ninka tur naasa samee marka this is not the place at family-gaaga aad ku discuss garaysid ma aha social media this is not the place waxa laga yaabaa naag necab inay tahay oo xataa qofkaanaytu
gashanaysid waxaan noqdaan dad wanaagsan maxaa businesskaaga social media dhex keena iyo gurigaaga iyo dad aan tacliinba u lahaynba oo trainingba u lahaynba oo waxbana ogeyn diinna qabanaysa jirin oo labada dhinac aan dhagaysi waxba aan lahayn dee oo maslaxa ku qabin always two ways ha ninkii hal dhinacana ka maqlay waa la boodayna ninkaas waxaan u baahanahay qofka waa labada dhinac waa in laga sheegaa ma garata labadii qof la isku keena and this is family matters maxaa inta dhex keenay marka dadka waa inay bartaan walaalayaal social media anaga sidii la rabay uma isticmaalayno for some reason social media waxaa u isticmaalaynaa waa kusoo fadaxaynaya warwankaagan keenaya qabiilkayga ka fiican that's all laandheerayaasha lagu sheegaya qabiiladan 24 hours ku faana narcissistic why they have this egotistic boasting anoo hebel laandheera ah anoo reer hebel ah waa dadkan waxa waa narcissistic because audience bay haystaan ya Naima mushkilada waxa weeyaan dad baa waxaas raacsan oo raba haddana ka kala aan ka hadlay rabo social media adiga eeg the only people who insult each other u furto oo inay isku caayaan waa Soomaali dadka kale oo dhan meelaha kale kaga jiraan waa dadka kaliya intay u soo fariistaan soo labis inay dadka is caayaan that's why ku leeyahay waa dadkeena inteena badan waxaan nahay Soomaali haddaan nahay nomadic waxa root ku leenahay dad ma aragtay hadii waxa laga yaabaa maanta ani aan baadiye ka imaanin ama meel ma aragtay inay hooyada ka timaad ama awooga ka imaad marka dadkii oo social media si qaldan u isticmaalay war social media waa platform hadda aniga waraa Facebook friend igula ah oo I think madow African American inay tahay gabadha marka aragtid she's selling waxay ku businesskeeda ku gadanaysaa waa sanaa fiirsado because it's like so nice beautiful waxbay sharaxay timi hagaajinay kana sameynay marmarka qaar waxa waa diinteeda waa dadka ahli diinka diinta codes diintay soo gashanaysaa diintii ka hadlaysaa marka dagaal waxa waaye iyo anaga Soomaalida buuq iyo chaos aan jecelnahay ma fahanti we need to wadankan waxa soo ragayso ma ahan de waxaan jecelnahay hadaad aragtid meelaha dadka lagu caayo 1k 1.5 2k because that's negative that's what we are energized I don't know they sleep better at the night time I don't know I lost honestly I don't understand I give up maya waxa waaye meelaha negative ka حتى أدي أهان أفمد أهان كوما فيعنا حتى وحلو ليه ما تقانا دتك مركز سيكولوجي سياسة دتك الله الله يحكوليه هدي دبعت له بوسو سمي وحاس forgive قفكي حتى دتك مسلم ما فيري for your own sake سأو عافي مادد forgive and move on because وحي راك كذا دي بصير رعدت oo ku sii laalaabay anxiety ba ka qaadaysa iyo marka waxa lagu dhahayaa hadda ka hor waxa aqrinayay waxa fiirsanay documentary gabar oo cadaan ah gabadhaanayti aaba iyo hooyo iyo waa aragtay cadaan wiil gabar ay ahaayeen marka she had a devoted parent laba waalid oo aad ma aragtay u kolkooliyay ahaysatay waa aragtay jaamacadaha markuu qofka ilmaha 11 grade yahay waxay buuxiyaan jaamacaday buuxiyaan waxa u soo baxday marka jaamacad state-ka ay joogto ma state kale gabadh uga soo baxday inay campus ka dhex degayso jaamacada dhex degayso maalmaha kamida marka and these kind of stories encouraging stories ina maqalnaa maskaxdeen u fiican oo qofka maanta depression ah inuu iloobo wuxuu depression ku ahaa waxa u baahanay uplifting stories ma garatay dad dhibaato soo maro dhibkii ka baxay laakiin dad 10 sano dhibkii uu ku dhex jiro you're not moving on wali buuqiya ku jirta you have to think marka gabar yar ahayd gabar dhalinyaro ahayd waa aragtay abay samarka gabdhaha dhalinyarada 18 years old just fresh from high school tuuladeedii yareed ay kusoo kortay ee safeka ahayd ee aabaheedii hooyadeedii waxaas u malaynaysaa waxay timaada big city ma garatay gabadhii marka waxay samaysay jaamacadii ay ka lugaysay dabagaab ay xirneyd timaheedii baloon cunug yaro qurux badan kaale iska arag gaariga as soon as ay saa usoo baxdayna gaariga soo daba dhigtay haddana at the same time she's young she's gullible she's easily maaragtay you know big city iyo maarkino street smart ma ahan hadday guriga ka soo baxday dee ma taqaano gabadha hooyada aabaheed cuntada gacanta ku hayeen ahayd marka gabadhii marka ninka wuxuu ku yiri hadda corner store-ka u socotaa dukaankaas halkaas ay faantay xad la ka soo gadato wuxuu yiri waan ku sii qaadaya gabadha quruxdeedu ka arkay waan ku sii qaadaya markaas inta okay gaariga dhex gashay gabadhii mar alaalka gaarigi dhex gashay ninki waa albaabadu xirtay gabadhii waa la tagay waa duur ku la tagay adiga gabadha wuxuu rabo ku sameeyay rape garay dhib ila ninka rapist weyn u ahaaba hal gadaal gaarigiisa waxa
waxa ugu jiro xargaha gabdhaha ku reebganaa ku xirxiran bahal seefo waaweyn oo mashadiis iyo balaa ugu xirxirneed gabadha intuu gaariga gadaashiisa ku kufsaday ayuu saa bahashi seefo wata saa ugu qalqalay cunugtii yareed saa ugu qalqalay marka this time gaarigii uu drive gareeyay gabadhii marka she play inay dhimatay camal iska dhigtay laakiin ma dhimanin gaariga gadaashiisu gabadhii galiyay wuxuu u wadaa meeshuu ku soo tuuri lahaa wuxuu rabaa inuu dambi meel durduur ku soo tuuro adiga highway isagoo saa u lalaay oo 60 miles per hour ku socda oo raba inuu durduurka gabadhii geeyo ayay soo yara maaxsatay saas u soo yara kacday ilaa walaal qofku ilaahay dilay u fadhinta of course ma fahantii hadii lagu talagalin ma dhimanaysid bas waqtigeedina ma ahayn laakiin waxa ku yaala waa yaabisa gabadhaas isay u dhiig baxday gaalkay saa u soo badax u soo qaaday gaarigii bay furtay dawjada moogtay inuu socoto geerideedii gaarigii bay furtay gaarigii bay iska tuurtay highway-gii bay bob saas iyada u rogmanaysa ayaa waxa arkay laba wiil oo cadaa madow ah oo sida opposite side ku socda markaas isfiiriyeen war waa maxay waxaas dhacay markaas uu xirkii kale war naga daameedii waa jawaan meesha ku dhacay ila qofkii speed ku socda laba arkay xataa of course markaas uu yiri ma aha qofku ahaa gabadha waa sida lagu dhalay hooyada abil caloosha uga sida hooyada caloosha uga soo baxday waa mulo markaas uu qofku ma ahayn markaas wiilashii way noqdeen warna ka hebel aan fiirina YouTube soo sameeyeen mise waaba gabar saa u qalqal oo saa dhiig uga dareeray help me bidaysa way qaadeen gaariga geliyeen soo daba ordooya kii ka soo daba carad adiga way ka raayeen way ka dheeraadeen isbitaalkii gabadhii geeyeen markii gabadhii la geeyay adiga alxamdulillah way fiicnaatay way soo maaxsatay marka iyada sheekadeeda ka sheekeynaysa waxay tiri waxa ay tiri Amanda you have two ways either you can play the victim inaan dhaho wow wax lagu soo jirkeeda dhan visible scars u jeedaa oo gacmaha dhan inta wajiga dhan ka qalan yahay marka waxay tiri either I can play the victim aniga waxay tiri ma raba ninkan inuu iga raayo oo nolosheeda dhan uu bedelo ma raba inuu moodkayga bedelo gabadhii long time therapy u tagtay nafteedii la tacaashay waalidkeeda la tacaalay wallahi waxay tiraaday maanta ma sha Allah ninaa qabo inta ciyaaleysata guriga degantahay marka waxay tiri I choose to be a survivor ma raba I don't want to hatta in la soo xasuusiyo dhan waxaas ku dhacay ma oga jeclaa xukuleed oh don't feel sorry for me yeah exactly she's already move on with her life because that to me that's a strong woman right there is a strong woman because culture code waxa weeyaan to get help to get a counseling to get the tools anaga nomad baan hay waxaan victimka dhulka lagu masaxaa daciif baa tahay qof xun baa tahay qofkii wax dilayna waxa la leeyahay you are strong you are free you are gacy you kill you this marka culture laba culture oo kala duwan baan kala soo baxnay to be honest with you we have to change the mentality to begin with to survive abayo gabdadkeena Soomaalidu waxaana dad barmood gareeya vulgar language qofka inuu waxa lagu leeyahay ay tamaya gacy way fariid way ninka ma aragtay waxa lagu leeyahay waxa uu tool lagu faano like honor badge oo kale qofka ma aragtay tama qofka dadka aan qofkaan ay waa qofka dadku iska celiya waa qofkaas ay tiiday ku faano qofkaas waa qof aan loo dhawaan karin oo yani limit lahayn ma garatay marka waxa xunna way promote gareeyaan qofkii arkaan inuu qofkaan ma sha Allah yahan qofkan ay tabaad dhaqana waa sidan ma aragto waa ina isfaanisa waa ina dal soo fadhiisata waa ina tirada aniga waray waa faan waa ina qabiilka laandeeraha ku faantaa waa ina ma aragtay dan waxa arkaysa kabaha lagu qaadaya waxa leey wow qofkaan ay tawaabo qof khatar de way ku rumaysanayaan de dadku waxay I don't know wallahi yani Naima insha Allah ba shamsi inta soo okay yes uga bagabay anigana breegay way ka dhamaaday marka dadka last maxaa la dhahaa word what you want to tell our maxaa kula aakhir nasiixa maxaa siinaysaa nasiixa waxaa siinaya dadka lagu maaragtay dadkan horta calaamadaha sayti alxamdulillah hadda ina barataan oo iska fiirisaan narcissistic wuxuu yahay research ku sameeysan it will help you in the long run ma garatay dadka ina akhrisatida baranaysa teeda kale yani ina adiga aan noqotid adoon ilaahay hadii xataa maanta fara laga haayo oo ay wax ka dhaceen ama aan ninkaaga ku xadgudubtay ama ma aragtay oo wax qalad ah sameysay ilaahay u noqo ilaahay ma aragtay dadkii aad dulmigaas ama markaas xanaaqsaneed
u sheeg waxaad tiraahdaa sadal qaladkaasa iga dhacay waxaa samee hostagena yaa lagaa dhigin waxaad tiraahdaa hey go ahead ma garatay haddana youtube facebook iyo dad hadda waxaaba soo baxayba la dagaalamaayo edab darrada iyo qof kasta waaba la iska qabanaya marka insha Allah alxamdulillah waa soo baxnay anaga waxba caayaynin thank you adoon ha u noqonin cidnaha adoon ha u noqonin anaga cidna aamusin karta ma lahan ilaahay afkeenaan waa haysanaa wixii xaqana waa ku dhahaynaa aniga igas niciima muslimka waa muslim qofka muslimka kale muraayadiisa waay waa in ani maanta bilaadana ahay muraayada ii tihiin in haddaan qaldam hay niciimo laakiin haddaan dhan ka war aniga ma leysixi karaba daas camal shaydaan waay this is arrogance this is wrong marka qof kastana maqaldamo waa ilaahay laakiinse dadka aa wax ku xiranaysaan dadka aa fareenka la noqonaysaan dadka aa wax ku darsanaysaan dadka aa wax ka dhageysanaysaan ani maanta niciimo ducaale waxaa wax ka dhageysan karaa qof nolosha success habaysta ma aynu qofka dhib kusoo dhicin laakiin qof dhibka intuu kusoo dhacay ka kabtay oo ii sheega sida toolka ii sheega alshaan aniga aan ka faa'iidaysto ii sheego qof weyn hadduu yahay sidoo ilmaha u rays garaystay because ilmahayga aniga way yaryar yihiin many of them hal cunug mooyaane kulli ma qaangaarin afarta kale waa ma qaangaarin waa ilmo yaryar marka uu ii sheego niciimo this is sidan wanaagsana ilmaha u korsaday sidaana ilmaha ma aragto loo koriyaa sidaana ilmaha ma arkino oo yani nolosha ama tii aakhiro ii sheego qofka sax ka baran karaa laakiin qof every aspect in their life kusoo fail gareeyay oo maxaan ka qaataa oo maantana waxaa waaye xanaaq iyo qaylo ku dhex jiro I can't ma fahantay marka walaalayaal insha Allah khayr barwaaqo idin rajeynayaa shamsi aada ugu maadsantahay adiga mudan xabiibati wallahi is worth it so much thank you so much xabiibti ani adina waa isla hadli doonaa okay insha Allah assalaamu calaykum marka intaasaan keenay ani walaashay marka waan ka faa'iidaystay wallahi videogeeda youtube-ka aad baan u dhageystay as I said waxa weeyaan waxa xunka waxaa loogala dagaalami karaa wax fiican in lagu bedelo qof waxa xun keliya ma dhammaanay waa inaa wax fiican ilaahay xataa subxaana watacaala maxaa la dhahaa Arabia 100 years ago markuu ilaahay uu la dagaalamayay shirkiga iyo idol worshiping muxuu keenay islaamku keenay rasuulka calayhi salaatu salaam buu keenay so tawxiid marka wax waa in lagu bedelaa waxa xun wax fiican waa in loo keeno wax xun maanta haddaa la dagaalantid adigii maxaa la dhahaa wax fiican dadkii oo lamaadan imaanin qof ashuunku adimaa unbaa tahay marka waxa fiican that's why walaashay niciima aan coordinate iskula sameynay inaa maxaa la dhahaa aan ka hadalno wax badiil ah iyada hooyo aad iiga yar weyn gabadheeda way noqon kartaa maxaa la dhahaa ayadana gabar wax qabsatay weeyaan adduunka anigana hooyo weyn baan ahay oo adduun haddii wax tarayo maxaa la dhahaa started from 23 years ago waa idin sheegay isma kibrinin ma dhihin aniga intaan ka imaaday started from beginning luqadii so in isbitaal intaan tago in la ii tarjumo I refused waayad ii tarjumo waddankan waan joogaa ma wax ka barto marka wax qabsada gabdhihiina yaryarka haweenkiina hadda Soomaaliya ka yimid oo Carabaha ka yimid please and please ESL ka isku soo qora start with the ESL aniga Canadaan jooga waxaa jira meel la dhahayo newcomers immigration adiga kalima Russian la jooga Bosnian baa jooga waxaa jooga Carab baa joogta waxaa joogta Chinese waxaa joogta Cambodian all kind of people weeyaan Iranian dadkan ka bartay marka ESL ka taga isa soo register gareeya start with ABC 3 saacadood haddaa qaadatid from I used to go from 8 to 1 o'clock ilmaha xataa meel lahayaa jirto luqadda waddanka aad joogtid baro luqadda waddanka aad joogtid waa inaa barataa waajib farda cayn bay kugu tahay tan labaadna waxaad kaga mashquulaysaa beenta Soomaalile haddaad ku dhex jirtid luqadii baad taqaanaa iyo gossipkii iyo qabiilkii kama dhex bixaysid take out yourself from Somali community even for temporary get out suburba at meel dad kala joogaan so reflect baa samaynaysa laakiin haddaad meeshii buuqatan tan xamanaysan tan caayistan ilmihiisa ku mashquulsan kan daba odis haddaa ku jirta 24/7 I did that I went to crazy I had to be active to take out myself from that community to reflect marka waxaan dhahayaa waa inaad mujtamacaas aad ka baxdaa mujtamaca taqaanay oo stresska ka bax buuq haddaa weligaa ku jirta ma fakaraysid so intaasaan idinkugu sameynaya hableena yaryarka ah
ilaahayna caruurta ha noo soo hadeeyo kii halowsana ilaahay noo soo celiyo kii hagaagsana ilaahay ha noo sii hadeeyo waddan waxaan joognaa caqiidadii iska dhaaf cunug yaroo daro aniga naciimani aad baan ogo cunug yaroo darooga shaarica ku cabe oo khamro meesha ku cabe oo meesha iska dhaaf that's not big deal ba uma arko waxa weeyaan side show weeyaan problemka waxa weeyaan ana haysto caqiidadii baa jiqa naga gashay caqiidadii baa dadkii waaweynaaba waxay aadol ka dhigteen qabiil iyo ashkhaas iyo cabsi khayrallah laga baqayo waxaasoo dhan baa meesha yaala ani waxaas side showgaasoo dhan waxba igama gelin wallahi caqiidadii fundamentalkii baa meesha ka halowsan fundamentalkii baa meesha ka halowsan salaad iyo soon iyo maxaa la dhahaa ma ahan diinta caqiida oo diib weeyaan ilaahay inuu addoonkiisa aad tahay bini aadam aadan ka baqin kaasaa laga bilaaba naftaadana wax u tar qabyaalad I don't know wallahi Facebook baan ku arkaa waaba waxaan aan ilaa hadda waa rumaysan lahay wuxuu yahayba qabiil wuxuu yahay ilaa hadda titleka intee geed miyaa jiro oo qabiil la dhaho kaastalada I don't understand what it is imaginary for me is imaginary weeyaan wax doesn't exist weeyaan non-existent weeye qabiil non-existent qof $10 maanta igu siiyid qabiil ahaan ani ma arag qof oo xataa ilmahayga iga jiro qabiil ahaan igu soo ziyaartay ani shams ahaan maba aragba qofaan isbaranay oo ijecel oo isoo ziyaartay waan arkay laakiin qof qabiil ahaan intuu iskugu ka yimid qabiil baan ka socdaa i dhahay ma arag weligay ana weligay so qabiil is imaginary for me I don't know meel aan ugu hagaagay qabiil waan waayeyba it doesn't exist in my life but diinteena iyo xadiis alayhi salaam wuxuu yiri inaha natina waa wax uraysuu yiri laakiin me wallahi I'm so happy I grew up in Arabia waxay ku fiican tahay ku sheega hal thing they make sure you don't belong to them so waliga qabaliyada carabta markaa ku aragtid you are not one of them so you are Somali ya Somali ayagana ku dhahayaan se u fiican wallahi Arabia waxay ku fiican tahay maba ku ogolaanayaan inaad dhex gashay inaad one of them aad noqotid so that waxay ka dhigaysaa mataqaanaa inaad Somali tahay يا صومالي عائلة الصومالية صومالي مسكحت هذا مركي ilmaha sii dhashay maanta oo dhan Soomaali lagu dhahayo qabiil baba eegaysid maba ogidba okay ma qabiilkayga waa Soomaali baad isleedahay first time Soomaali ah meel joogaan oo qabiil ah Canada ku ark anoo naagayno 3 caruur wato it didn't sit for me because something I did not grow up it didn't sit for me because it's imaginary wax hawada saas ugu qoran ama carada ku qoran oo moojka wax qaadaya ahayd so for me it doesn't affect me anything it's nothing individualism baan aqaana naftayda in qabri keligay baa dhashay keligay bay qabri la gelinaya yawma yafiru mar'u min akhihi wa saaxibatihi wa banihi maalin waxa isugaysa quraanka ilaahay igu sheegay oo ninka walaalkiis iyo aabihiis iyo naagtiisa iyo caruurtiisa u ka cararay waxay ku tusaysaa yani quraanka ciyaarna looma sheegin quraanka wuxuu noo sheegaysaa inuusan kuwaas adduunka kaliya leeyahay salta raxa there's nothing إنما مال والبنون زينة الحياة الدنيا بالوي والباقيات الصالحات خير مال إيو عرور إيو فاميلي إيو وزينة أنت أدونك جوكتو وحلسك قرقرحية ويان قيمة أنت أسك بدن بمالها تعلق أكو تعلق ضد مجرتو ويدي من كرا المهاجة ماشي دون بيرا أكرا مالك أجو تيكرا ماشي دون مالك تيكرا that doesn't matter مركا qof aad aakhiro markii ay gurigaaga ugu dambeey aad tagis aad ka cararayso walaalka waa naagtaada waa aabaha waa caruurtaada fitna weeyaan in awlaadakum wa amwaalakum fitna buu ilaahay yiri marka is adkeeya lagu yiri fitna weeyaan fitnada adduunka weeyaan so haddii aad isa siisid oo isku waashid iyo haddaa ilaahay aamintid do your job let Allah subhanahu wa ta'ala do the things fitna walim inama amwaalakum وأولادكم فتنة قرآنك جايز ما آخر ستان تكذك عروتي سكو عاية إلهي باير فتنة وين عروتها أيوة أصر صومال هذا ما بربي أنا وما كسر يا هذا وحاب النقضي human race وحيق الله أندرسن ما بجربه I'm part of the human race I'm not part of the black or white or ethnicity وحاس وانك تجي I am a human race baan ka mid ahay laandeeraan ahay
أنيسة أوكي صوت ضلبة حبيبتي وانكو سوق قبنية لكن give me 1 second my Facebook سوق صوت ضلبة بالحدان فري محالة دها أنيسة شالي وانكري واي محالة دها آمين يا رب العالم كل إلهي جنة هنجي إلهي وحالي من تزحزح عن النار ودخل الجنة قد فاز فوزا عظيما قفكي صراط كمركي لمرة يتزحزح ساس ودعدع وحال مر للجنة قال فوز كبدن يوين كبدن مجرته مركا كل إلهي دنبيين هذا في الدنيا وآخرة قف بنا آدم إن حقي سأنا وحكست إلهي أدي إلهي ذنوبت والله ذنوبت أد إلهي أد كجش which is أوامرك إلهي بعد خلافتي كاس وقت كتوبة كيني كرتا إلا الشرك وكتوبة كيني كرتا إيه ذنوبت أد بنا آدم كجش كاس ولقى قضية لقى معفنية no قف بنا آدم أنا عرضي سشكت والله العظيم آخر والوسو استاجنا لقى معفنية محد سمود استغفر الله بعد يسدد إن شاء الله عيمان توكتك no بنت نفت لها وشيء دنبكس حتى ري هدي أي هرددو آخر هردي بالله أنت العرى لقدين لأن إلهي سبحانه وتعالى عادل ويان العدل عايشة طبعا آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سكرين كأن كآخرنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير thank you عائشة مركا محالتها قف كستوقف بني آدم كحد قدبي والله العظيم it's better for you إن مسامح ويدي إنت النوشها هادو قف كده انت ستيل حرب وياه آخر إنه كويديسي إنك الغف كلا الظلمه صدق قف كاس نيديس وبحي دم بداف سجود وجود قف كاس وحي شيء هذا المال كجارت آدم هي سنة لقى ما فينا قف كاس بني آدم كحقيسة because مسلم من أسلم يدي ولسانه من المسلمين وين أمان أفكاره يقع عن تذات كهيشت مركا دتك بنت اسكو شيء محالة دها قف بني آدم دنبيات كيش اللي قاعد معه فيني قف كسوانا عفس ويدي ستا exactly حبيبتي عايشة وانكون قناة السك إن أكرمكم عند الله أتقاكم دينك إذكوا في عن واكب تقوى ضبطا إن الله عليم خبير إلهي وأجه عليم نويه وأنا خبير ونأجه واحد سمين إنسان قلوبتنا الخبير بويه وأجه واحد نفط تسيست معها إلهي كل جن هنا ودعفيه أن محالة دها ودتك حن أن إسكعلينه يا ناس والله I cannot say it enough دتك حن أن إسكقبنه no matter what هدو ولا الكايه هدو إلمها جاي هاي I know هدو ولا الكايه هدو أبها هدو هوي دايه هدو قفكيه ظلمي دتك كعلي هذا إلي كجوجان ديدي ويانا is destiny جاك سميسو لأن إلهي وكوك اللهم هل بلغت اللهم فشبه waxa wadankiina soo gubay waxa meel walba aad mashaakil idin kugu imaanayeen waxa weeyaan dulmiga la iska celinaynin wallahi qofkii dulmiga ka aamus shaytaan akhris inuu yahay ya almuslim man salama muslimina bilisanihi wa yadihi allahumma hdina wa'fu 'anna amin ya rabbal alamin hamdi marka dulmiga la iska qabto ardiga way fasaadaysa way ku soo gaaraysa aniga ma ihi ani wax ma sheegay dad way ku soo gaaraysa I can't soo dalbo qofna ma qaban karo qof aan soo qaban karo ma jirto ma ducaale kaliya igu jirto aan ducaalan way dhamaysay anigana maxaa la dhahaa saacadii ma aqaan meesha intay tahay hadartan maxaa la dhahaa waxaan shaqadayda baan aan ku noqonayaa duhurkiina waa la gaaray aywaad 104 way timekayga 102 yaa la adimaa soo salaadeedana waan tukanayaa insha allahu tacaala اسكو سو ودا دعينو لان الدعاء ولالك او دعينيسد في الغيب ومستجاب ويان ملائك باكو ديس لك مثل ادغنا واد ليدهي marka ducadaha iskala bakhilina walaalka muslimka walaasha muslimada u ducee adigay kugu soo noqonaysa ducada walaalka ay walaasha wax xun ka sheeg adigay kugu soo noqonaysa so choose what kugu soo noqonaya ما دعادي ملائكة كده هي محل ده لك مثلك أو عادي أتذكر عايزة أو محل ده أو هبارك كوجسون نقولي you choose ما كرتين
so وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا عليه الصلاة والسلام كسلنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم. tomorrow إن شاء الله فجر تام بنصون سوقليا. so السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة دي ذات تاجن والله حتى أنت